dooni mayno dam jadiid dooni mayno xasan baraf dooni mayno dam shabaab iyo erayo la mid ah ayay ku dhawaaqayaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana si xun loo bahdilay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Dani oo banaan ka keenay dagaalka uu la gali doona Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale bahdil weyn oo ka dhacday hogaamiyaha kooxda dam jadiid oo maantay booqday deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland shacabka Puntland oo muujiyay taageerada ay u hayaan madaxweyne Farmaajo iyaga oo markaasi bilaabay mudaharaadyo waaweyn oo ay kaga hor imaanayaan hogaamiyaha dam jadiid Xasan Sheekh Maxamuud wadooyinka magaalada Garowe oo maantay shacab xoonsan oo calaysan ay ku soo yaaceen hogaamiyaha kooxda dam jadiid iyo ciidamada ammaanka oo xakameynayay shacabka waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa wixii maantay ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ee shacabka Puntland oo muujiyay dareenkii wadaninimo iyo sidoo kale soo dhaweyneed uu sameeyay madaxweyne Farmaajo muuqaalo kooban oo ku saabsan sidii madaxweyne Farmaajo loogu soo dhaweeyay deegaanada Puntland xilligaas ayaan dul istaagi doonaa iyagana sidoo kalena waxaan dul istaagaynaa sidii maantay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama hogaamiyaha kooxda dam jadiid ay shacabka u bahdileen dhammaan taageerayaasha wadaniyiinta ee Soomaaliyeed muuqaalkan sii share garay lana wadaaga saaxiibadiina dhammaantiin muuqaalka la gareeyo YouTube-kana subscribe saarta bogana Facebook-na follow-na soo dhaha ku mahadsanidin aynu ku bilownaa saaxiibayaal boqolaal shacab ah oo careysan ayaa maantay si xun u bahdilay sidoo kalena sawirka Xasan Sheekh Maxamuud ama hogaamiyaha kooxda dam jadiid ayaa la jeexay oo dab la qabadsiiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho magaalada Garowe ee caasimadda Puntland soo dhaweyn la filayay inay dhacdo oo si heer sare markaasi ay u dhacdo ayaa isku bedeshay mudaharaad weyn oo gilgilay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana la arkay shacabka oo ku dhawaaqayaan dooni mayno dam jadiid dooni mayno dam shabaab dooni mayna xasan baraf iyo erayo kale oo la mid ah waxaana shacabku ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo madaxweyne ka wanaagsan uu san jirin sidoo kalena ay taageersan yihiin mid ka mid ah dadkii loo xil saaray ama madaxweynaha Puntland oo u xil saaray soo dhaweynta Xasan Sheekh Maxamuud inay diyaar gareeyaan oo shacabka isku soo saaraan ayaa sida tambagiisa Facebook ku soo qoray maxaan sameeynaa haddii ay shacabka naceen Xasan Sheekh Maxamuud ilaa xalay waxa la raadinayay dad soo dhaweeya Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyn waa la waayay waxaan la helay 5 gabdhood oo midiiba loo tuuray $100 Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ha iimaansadaan 5taas gabdhood maadaama shacabkii ay naceen sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu bahdilay magaalooyinka Dhuusamareeb ee Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Baydhabo waxaana markaasi la arkayay shacab kooban iyo wasiiradana siyaasiyadeed iyo sidoo kale jagooyin ka raadinaya Xasan Sheekh Maxamuud oo uga hortagaya aeroboorka dareenka shacabka iyo sidoo kale guuxa dadweynuhuba ee wadaninimo wuxuu la jiray madaxweyne Farmaajo haddaba 2019 madaxweyne Farmaajo waxa la xasuustaa in ciidamada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo kuwa Puntlandba ay si weyn u soo dhaweeyeen iyadoo la arkay boqolaal shacab ah oo dadka Puntland ah oo isugu soo baxay fagaarayaasha iyo madaxweyne Farmaajo oo waayay meel uu dadka ka galo taasina ay keentay muujiyana dareenka wadaninimo ee xilligaas Xasan Sheekh Maxamuud xataa baanboyda uma iimaan waxay ahayd from garoonka diyaaradaha to madaxtooyada Puntland ee Garowe haddaba saaxiibayaal la daawada soo dhaweynta heerka sare ee shacabweynaha Puntland ay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo iyagoon la isku soo saarin wadooyinkan ay u xireen iyo sida Xasan Sheekh Maxamuud loogu bahdilay magaalada Garowe waxaan soo horumarin doonaa soo dhaweyntii madaxweynaha qaranka ee sagaalaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shacabka oo maalintaas muujiyay dareen wadaninimo oo baaxad leh
garoonka Generaal Maxamed Abshir ee caasimadda Puntland waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh noogu soo sharfeen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8 bisha waxaan ku faraxsanahay inay shacabka Puntland iyo dawladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya ee magaalada Muqdisho caalamka waxay noo tahay sharaf gaar ah waxaan rajaynaynaa muddada ay nala joogaan inay wax badan oo wanaag naga arki doonaan waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa haddii soo dhaweyntu culayska badan oo jira dartiisa wax naga xumaadaan in laga raalahaado waxaan ku faraxsanahay imaanshiina waxaan rajaynaynaa in ay meeshaan ay noqoto kulan taariikhi ah sida wanaagsan ee aan kala harka lahayn ee dawladda Soomaaliya federaalka ah ee nagu soo karaamaysay annaguna waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay inaan noqono kuwo karaamadaas iyo sharaftaas loo sameeyo xasuusnaada ee horena u sii wada haddaba war dhafoor ayuu ku yaalaa waad u jeedaa sida shacabku ay u kala sharfeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana muuqata in shacabku dareenkoodu mar walba la jiro hogaamiyihii shacabka hogaamiyihii xisbiga nabad iyo nolol iyo madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.